gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta ka qayb galay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay mid ka mid ah beelaha dega gobolka Togdheer ku shaacinaysay xuduudida taageero ee ay hayso xisbiga kulmiye. Munaasabadani oo ka qabsoontay hotel cafe ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta cuqaasha haweenka iyo waxgaradka beeshani iyo madax sare oo ka socotay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye. Cuqaasha iyo qorweynta beeshani oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxay ka dhawaajiyeen inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye iyagoona intaasi ku daray inay ahaayeen xisbiga tan iyo asaaskiisii. mudane muuse noo sharaf xafladan beelweynta Samaraa Bokor aad kala soo qayb gashay tashriif bay noo tahay waxa weeye beelku weliba kulmiye ahaa aasaaskii ahaa kuwii bilaabay ee badcaydu ahaa maantana ma aha mid cusub oo lagu soo marti qaadaya waxa weeye waa update baa la yidhaahdaa ama waxaa la yidhaahdaa laba kaclayn baa la yidhaahdaa waa mid gaar ahaan aanu ugu talagalnay musharaxa madaxweynaha insha allahu tacaala inaanu u muujino taageero ka soo goday kaliya laab oo reerka xaggiisa ka socota oo qofku uu ku foosaa hadduu doono waxaa toban ka yar dee waad aragtaa kaa kumayaan baan kuu fadhiya kumayaankaas ali ay guraacsan yihiin boqolaal kumanan kalena waa kuu qarsoon yihiin markaa ku bushaarayso haddii aad tahay madaxweynaha insha allah bidmillaahi kariim inaad helayso madaxweynimada soo socoto haddii dadka qaarmoodayo xusbiga maanta inaynu daaqada kaga soo goodnay xusbiga weligaba waynu ahayn san isugu yimid halka lagu muujinayaana waxa ay tahay taageeraduna halkeedii taagintu aanay iska bedelen mudane guddoomiye musharaxa madaxweyne muuse biixi cabdi reerka waa aragtaa hadhaa male gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer wasiirkii hore ee maaliyadda ambasador Cawil iyo safiirka Soomaaliland ee dalka China oo goobtaasi ka hadlay ayaa iyaguna waxa hadaladoodii ka mid ahaa beesha Samaraa Bokor xafladan ballaaran ee quruxda badan oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sharafna ii ah xafladan sida ay u soo agaasimeen cid kastoo soo agaasintay waa idinka mahadcelinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin inooma sina walaalayaal kuwii keynta u galay kuwii duurka u galay kuwii yidhi dadka yaga siday ay dhibaatada haysa inaannu ka dulqaadno ayaannu u badheedhnay walaali noolama sinna kuwa markaa u adeegayay nidaamkii dooxatada ahaa musharaxeennu muuse biixi cabdi wuxuu ka mid yahay kuwaynu ugu heesaynay ayaamii qadhaadhaa ururkiiyo jibbaarrada watow jimicsadoo duula warashax muuse u hiidhilmaysaan Soomaaliya ma u hiidhinaysaan markuu soo baxo waana misanahay inuu warashax muuse kuweysanayo way taariikhda u hiidhinaysa taariikhda nafsigeedii leedahay hiilkeedii leedahay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamuud Aadan Jaamac Galaal iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxay tibaaxeen beeshani waa beel gobolka Togdheer caanka ah jamhuuriyadda Soomaaliland caanka ah wadankii Soomaaliya loo oran jiray ama mandaqadana laga yaqaano hadday tacliin tahay hadday hoggaan tahay rag fara badan baa ka soo baxay maanta beeshaasi tayadii waxay ku darsatay tiro tartan baa lagu jiraa inaan u caddeeyo wafdidan ballaaran ee murashaxa muuse biixi cabdi hogaaminayo beeshu shiikh iyo shariif waayeel iyo waxgarad wadaad iyo waran leh waxa ay si mugle dhalinyaro iyo haween waxa ay si mugle u taageertay oo taageero la berber taagan tahay murashaxa kulmiye iyo xisbiga kulmiye doorashada soo socota galaysaa ololahay galaysaa qof waliba qof jaarkiisa iyo ehelkiisa iyuu u gudbinayaa
fariinta xisbiga ka soo baxday in hore loo socdo aan dib loo socon in berrito ay maanta dhaami doonto in mustaqbalkeenna iyo masiirkeenna iyo aayaheenna ninka aynu ku aamini karaa uu yahay murashaxa xisbiga kulmiye guddoomiye mujaahid muuse biixi cabdi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anagu hadlaya magaca wafdi iyo magaca bahweyntiikoodiyo oodan oo naafaha dadka joogta soo dhaweynta gobeen sharafta leh milgaha leh ee aan loo kalaanin rag iyo dumar carruur iyo ciqoole sheekh iyo shariif ee maanta taageerada milgaha leh ee xoogga leh ee ugu taageertay ugu soo dhaweysay aad iyo aad baan maalintii la xidhay Ismaaciil Cali Abubakar iyo Cumar Carte oo siduu sheegay intii ahaa annagoo dhalinyaro aan waxba wadu hayna oo kacaankii u jigaysan nagu yiri waxbaa qaldan iyagoo dalka xeerka u shaqeeya haya waxaanu ka mid ahay qoladii ay qaranka ugu bilaabeen in dhibaata jirto oo dalkeenu dulma yahay oo dowladnimadeena dhacan tahay qoladii arrinta loo qabatay bay ahaayeen iyaga iyo kirashaqeyn markaasana dibadii biloweyka abuurtay labadaba annagu qoladii gudahaanu ahayn waxa qaranka loo qabtay oo Carte Ismaaciil Cali Abubakar iyo kirashaqeynaysa Shaafici Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.